بسم الله الرحمن الرحيم خيارات قيمة بدن سود وهذا مركو ورئيسة كان إسماعيل أي لفظية أو نروي كيمد هاني حاج محمد إهل كذا أما السجي وحايمد دمشق سما حوارير قبلها برشيدة لبده يمد مركو حاربنا وربحين كوبان إن أنا ذيك السينو geeridii ku timid walaasheen hani xaaji maxamed maadaama bari ugu dambeeyay warar fara badan la isla dhexmarayay kadibna markay geeriyootay Allah u naxariistay social media ha iyo waliba page-ka kale ee Soomaalida warar kale gedisan lagu faafiyay marka booliska markay la wareegeen oo baaritaan badan ay marsiin labadii habeen ay ugu dambeysay maanta gelinkii hore 12kii duhurnimo ayay soo gabagabowday waxaana tagnay xaruntii baaritaanka uu ka socday markii lagu soo wargeliyay markuu qorays waxa rabaa in qaabka ay u geeriyootay markuu qorays in faahfaahin aan ka bixiyo kadibna waxaan sii doonaa Ismaaciil aan sii doonaa oo asagu tagay saakay soo arkay hani meesha la geeyay ama ay ku jirto soo arkay markuu qorays waxaan taasitiraa in la udreena dhamaan eeyladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay Allah u naxariisto ayaan leenahay qof walba uu dhimanaya bil barakeysan 10kii dambe ugu qeyrka badan ay geeriyootay hani waxay ahayd gabar wariye ahayd sida la socotaan oo mudooyinkii ugu dambeeyay warbaahintii joogtay Universal ayaan ka wada shaqeynay safar soo gashay dalxiis halkan u timid markii halkan u timidna wuxuu qorsheedu ahaa in ay sii baxdo ayuu qorsheeday ahaa oo socdo laakiin wixii waa u suurgali waayeen kadibna waxa ay go'aansatay inay marto badda inay marto oo halka ay Greece iyo inay tagto nasiib wanaag wixii si wanaagsan ay ku dhamaadeen safarkii gashay waa ay baxday markay baxday oo waxa laga soo celiyay xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Greece ayaa laga soo celiyay marka laga soo dib waxa loogu soo celiyay Istanbul ayaa lagu soo celiyay ku dhawaad ilaa iyo 15 ruux ay safarka ku wada jireen markii la soo celiyay Istanbul lagu soo celiyay Istanbul ay muddo joogtay adiga isbuuc amal ay joogtay kadib maalmihii ugu dambeeyay intaysan geerin 2 maalin ka hor ay xanuunsatay xanuun ayaa ku soo booday xanuunku ku soo booday guriga joogtay isbitaalka la geeyay wiilashii guriga ay la joogeen isbitaal private la geeyay oo midlife la yiraahdo oo Istanbul ku dhaxyaal isbitaalka marka la geeyay isbitaalka waxa uu sheegay in xanuuno sidaas u badan inuu sahayn laakiin xanuunka ugu badan markaas hani uu hayo wuxuu ahaa gas ayuu hayay oo markaasi ay dareemaysay gas xun ay hayay walilah alxamdu isbitaalkii si wanaagsan waxay ku soo dhamaadeen dib loogu soo celiyay isbitaalka dawladda loo diray marka waqtiga ku dhamaaday maalinta guriga tagtay guriga ku hooyatay maalintii xigtay xanuunkii ayaa xoogaa ku soo zaayiday ayadoo xanuunsan soo baxday waxay tagtay mid kamid ah xawaaladaha ku yaal magaalada Istanbul ayadoo markaas lacag ay haysay ehelkeeda markaas ay u direysay markay xawaalada joogtay ragga xawaalada ka shaqeynayay qaarkood aan wareysanay waxay noo sheegeen in gabadha amhani Allah u naxariistay si xoog badan markay xawaalada joogtay loo hayay aad xanuunkeedii u soo ziyaaday hadaladii sheegaysay waxa kamid ahaa ama hadaladii markaasi ay xawaalintii joogtay sheegtay waxa kamid ahaa xanuunkan saan yahay waxa ay ugu wanaagsanaa lahayd maanta hadda heli lahaa qof wax ugu dhufta maxabad ugu dhufta hadana heli lahaa way ka wanaagsanaa lahayd markaasi raggii xawaalada joogay ayaa intooda badan si wanaagsan markaasi u dajiyay habeenkii guriga ku soo hooyatay ayadoo gelinkii galbihii marka la gaaray xanuunka xoogaa uu ka qabifay habeenkii si nabad leh ku seexatay subaxii marka la soo kacay 9ka subaxnimo markay ahayd ay isdiyaarisay waxay rabtay magaalada inay soo aado markaasi wiil Ankara ka imaanay uu hayay kaar uu hayay oo caafimaadka lagu maro ayaa wiilkii marka wuxuu yiri magaaladan soo galay kaarkan ku hayaa wali ka soo dhiibay gabar oo ay wada joogeen oo Ankara ay wada degnaayeen ayaa waxay sheegtay kaarkii in ay usoo dhiibtay wiilka markuu yimid wuxuu kaarkan ku hayay hani bal imo meel magaalada kamid ah ayuu ku balamiyay markuu ku balamiyayna waxa ay tiri daqiiqada kadib ayaan ku imaanay way isdiyaarisay guriga joogtay markay isdiyaarisay waxay sugaysay wiil oo guriga degan inuu markaasi raaco kursi ku fariisatay kursi markay ku fariisatay
wiilkii ayadoo sugaysa xanuun qabtay xanuun ayaa qabtay oo ku soo saayiday xanuunkii ku soo saayiday gabar guriga joogtay soo dirtay waxay tiri wiilka meel hebel joog kaarka igaga soo qaad gabar guriga joogta soo carartay wiilkii u timid kaarkii ayay ka qaaday kaarka markay ka qaaday kaarka intii loo sii waday hani hal maray matag yar way matagtay waxay matagtay wax madow ah ayay matagtay wiilkii guriga jooga Abakar la yiraahdaa bakarkii qabtay uu ashadunku u qabtay alxamdulillah way shahaadatay markii shahaadatayna sidaas ay nafta uga baxday wuu qaaday meeshay jiiftay sariirtay jiiftuu geeyay ambulance ka la wacay ambulance marka la wacay ambulance marka yimid way la tacaaleen markii la tacaaleen waxay yiraahdeen in isbitaalka ka gaarsiin waa isbitaalka loo la soo carray markay ahayd ku dhawaad oo ficiladaas ama waxaas oo dhan markay dhacayaan markuu kaarka wiilka ku wareejiyay oo soo dhaqaaqay oo gabadhii kaarka uu ka soo dhaqaaqay ayaa la soo wacay waxa la yiri hani waa ay geeriyootay wiilka wuxuu wacay saaxiibo magaalada joogo iyo anigu waxa arkay dhowr message call markaasi oo teleefonkayga saaran markaan arkay teleefonkii ugu dambeeyay ku celiyay yar Saciid la yiraahdo oo gabadha kaarka keen ahaa yarka la hadlay wuxuu igu yiri hani ayaa geeriyootay guriga ka soo baxana asxaab kala u yeeray sida meesha ku tagnay gurigii isbitaalka kadib tagnay isbitaalka saacadii hayeen saacad markii hayeen waxay yiraahdeen gabadhan way geeriyootay dhaqaatiirta su'aalihiina weydiiyeen waxa kamid ahaa drugs ma isticmaali jirtay waxyaalo kale ma isticmaali jirtay xagee ku nooleed su'aalo noocaas oo kale ehelkeedii qaraabadeeda wadanka jaaliyadu leeyahay jaaliyada meesha timid waxaan anaga jaaliyada meesha ka ah jaaliyada gudoomiyay jaaliyada yimid asxaab kala timid marka waxay yiraahdeen gabadha way geeriyotay marka reportka dhimashada ayaan idin qorinaa reportka la qoray adiga hal saac kadib markay tahayna waxaan codsanay in sababta ay u geeriyootay inaan ogaano waxaan dalban in baaritaan lagu sameeyo qaabka ay u geeriyootay in baaritaan lagu sameeyo booliskii ay yimid wuxuu tagay gurigii hani ay degneed jaakin far badan ay guriga ku sameeyeen meeshay fadhisay meeshay seexanaysay waxyaalaha ay isticmaalaysay alaabteedii dadka guriga joogo qaar kamid ah su'aalo la weydiiyay way baxeen xali ugu dambeysay rag kale la wacay su'aalo la weydiiyay waxay yiraahdeen baaritaan noo socda baaritaanku wixii jawaab ka soo baxna briita idin soo sheegayna saakay markay ahayd 8 subaxnimo ayay soo waceen waxay yiraahdeen baaritaanka waa dhameeyna waxa imaanaysaan xarunta cadaaladda iyo caafimaadka ee ku taal Istanbul meeshaan tagnay waxa galay Ismaaciil iyo habarirteeda oo Norway ka yimid oo xalayna soo gaaray ayaa meesha galay way soo arkeen waxaana booliska ay sheegeen inay muutul fajaa si degdeg ah lama filaan ah inay ku dhimatay aysan wax dhibaato ama jug ah aysan qabin la jir dilin oo hal mar si kaliya inay ku dhimatay xaaladeeda si normal ah markaasi ay u dhimatay oo yaani geeri degdeg ah oo fajaa inay markaasi ay u timid oxidona markaasi inay u timid marka waxa jira marka warar far badan oo social media maray oo ahaa gabadha ayadoo taariibaysa la soo dilay ayadoo sidaan ah waxyaalahaas lagu sameeyay waa la jir dilay dhibaato badan ku dhacday wararkaas oo dhan marka maanta way soo afjarmayaan waxayna ku soo afjarmayaan in haniti alle ay u timid ay geeriyootay booliskana 2 maalin iyo dhaqaatiirta ay haysteen ay baarayeen ayadoo marka ay marka ugu dambeysayna ay noo cadeeyeen inay si caadi ah oo lama filaan ah muutul fajaa la yiraahdaa oo xanuun yar qabtay inay u geeriyootay marka xaalka halkaas soo maraya marka waxaan qoondaynaynaa haduu eebe idmo maalinta berita salaada casir in lagula tukado isbitaalkan Muraad Baasha oo Yusuf Baasha ku yaal Soomaalida magaalada degan ay u yaqaanaan isha Baydhabo masaajidka ku yaal bari galab lagula tukado doona haduu eebe idmo sidaan la soconana dawladda hoose Istanbul iyo marka qofka geeriyoodo aaskaasi iyo dadka raaci lahaa iyo imaamkii iyo qabriga la qodi lahaa waxa soo dhan waa iska lacag la'aan marka dawladda Turkigana iyo dawladda hoose aadan uga mahad celinayna marka waxaan u sheegaynaa asxaabta wararka beenta faafinayay in hani si caadi ah u dhimatay waxaan doonayaa marka Ismaaciil oo ehelka kamid ah
inaan asagana bal kelmad iyo wuxuu dhihi lahaa ama wuxuu ku dari lahaa inuu yiraahdo iyo saakay iyo wuxuu meesha kusoo arkay iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga qaabka ay markaasi ay u soo dhaweeyeen. Ismaaciil soo dhawo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز دمان غيرت السلام يا سلمان بيجي سكتحان. نرتينا الله من الرجعون إلى ونحرستاني حاج محمد. هالكاس أي وقت جاد كويك طبعا. قبك ساعد من ودرة ساعد من ودق دقايق. تاع ساعد من ور مرنا معهم طول منا. مركز أنا جا سيدو شاقي سلمان كل حي هراء سلمان هكشيء كي. أنا واحد كوري بقرا كلية حالة مكان متي في كده بي حالة سوق لنا هالكان وحن مت هل ساعة هبيني ما نمت كدبنا مقالة حصل قلنا 6 ساعة عمل سلماركي هوش يعني جودة قلنا إن نقول نذكر الدول سلمان وكبدها ذكر إلى دجنات ويلشي تجوانا دوها مركا كل ساعة كأنه وحن كده المرة عن تقنية حرمتي مش أي تالي كده ميت كويالي نحرم تاسنا حن قصوا عرقنا أنا جايو محمد حبرير كده ميت كده نصوا عرقنا دول استغني نورلو أغلبنا قلنا kadibna waxaa noo suurta gashay inaan weydiino su'aalo sababta gabadha u dhimatay iyo kiiska wuxuu kusoo dhamaaday marka kulli waxay noo sheegeen in wax oo dhibaato ah gooni gabadhiisa u dhiman kaliya ay u dhimatay si caadi ah qof xanuunsan oo dhintay macnaha sabab kale aysan jirin ay heleen ama ha ahaato jirdil ama ha ahaato maxaa dhihi jiray qofka wax kale dhibaato si shakhsiyan isku geystay marka kulli waa meyd qof caadi u geeriyooday waayo dhaawacna uma dhiman wax kale uma dhiman marka sidaas kulli kusoo dhamaaday طبعا وحي كيس كاس وحي كتم بين البوليس أيقو يلا لكن هذا وحي سوقو كمان حتى صابت كبده يوجي ريوتي إني عديان وين عديان تاسوه إني سن وحبا دب يسنو دمان هني ناوح مجرو وحكلو مسؤول يعبد مجرتو خاطر سنة وشيء مركو حنقع سنة دمان ضدك فيسبوك استعماله إني جوجيان ورك كبينا ورنا يعني قبل ساكين توجي ريوتي هالكاس نورك معنا نورك لا جنحسن gabadha si caadi u dhimatay loo duceeyo ayada nasiib leh oo 10ka Ramadaan ugu dambeeyay geeriyootay maalin Ramadaan ah marka kulli waxaan u barinahay subhanahu wa ta'ala inuu jannada firdaws geeyo familkeedana ma u tacsiirina anigana kamid tahay kulli dhamaan inta xanuunka la qaybsatay oo ku mahadsan yihiin kulli birid soo sheegana Salman birid insha Allah casrka lagu dugan doonaa janaasada masjidkan Murad Basha salaam dhawaaq kadibna waxaan u qaadi doonaa insha Allah gurigeedii rasmiga ah قبورها إن شاء الله. ما حاجة المدير اللي هتقرين تعب كسابسن وحيالي كتكتي لا غفر بدني كتكتي لا حاجة كتكتي وحيال بدني كتكتي. كل عاون بلاسان هاي نسكوي معنا عن جديد وجوبتي وكل استوك سماشة ودور كرام سمالة عن رجالات كعادية تمت تحيدات كلامي نسكوي معنا كدبنا على لوريجنا كان على لوري جاورير وعقوف وجوده ما انتهى كان جو مركا واحد بعد ناس كمان تاجنا. وهاجي إسماعيل هذا مهزين هاي كل سيدو وشجع وين السجا يو هوريرا وكيلك أو سفر دقيقة مركزي أسوقلي إني أركان قبل ما دام أنا جرا مركزي الدولة دو أي أمرتي إلا آسي كروحيل ولا لكن وعن عصني إن قفك مركو جيريو سببته أو جيريو مركز إلا هو ومهم ما دام الجوكتي جوري أيسن أهل كذا مقربة ده جوري أصحاب إسكت جوكتي markaasi gurina ay ku geeriyootay iyadoo la wixii karaan balaas waxyaalo fara badan la wixii kara marka baaritaanka dalbana waxaa keenay in markaasi la ogaado ama la xaqiijiyo sababta geerida ay u timid qofku uu geeriyoon karaa degdeg malkumeedka yani meel walba waa jooga wax walba dhici kara in marka la xaqiijiyo ehelka loo xaqiijiyo oo Soomaali joogo hooyadeeda abaheeda oo aan xiriir fara badan la sameeynay su'aalaha ayna weydiinayeen waxa sababta uu geeriyootay maxay tahay marka baaritaankaasi waxa loo dalbado kaliya waxay ahayd in ehelka ay ogaadaan gabadh in la baaray ay wax walba la cadeeyay boolisku cadeeyay ay si caadi ah oo inay u dhimato wax jirdil ah wax drugs ah aysan isticmaalin ama aysan u dhiman Soomaalida badanana wararka qofka bini'aadanka ana dadka qaarna wararka xun waa caadadooda inay faafiyaan وحربان هكو هلانه إني وحياة لدونين أما ونكسنين إني فافيان مركو على ونكسن هاي دور جران أرقنا ورنا عسو كلا لفافينا يقولي هذا التهريب كلوسو جردلي
drugs isticmaashay sunay cabtay waxyaala lamid ah laakiin waxaasi caawa ama maanta waxaynu ka nahay wax false ah oo korkuteen ama been ah oo sal iratona lahayn alxamdulillah wixii si wanaagsan ku soo dhamaadeen hadda marka waxa noo yaal waxay tahay inaan aaskeedii aan qabanqaabino aan diyaar garayno wadan muslim ku dhimatay si muslima loo aasi doonaa soomaalida ku nool Istanbul guud ahaan waxaan rajaynaynaa in berito salaada casr inay nagula soo tukadaan masaajidkan Murad Basha la yiraahdo ama Yusuf Basha ama Isha Baydhabo oo Soomaalida u taqaan ay la baxday in ay yimaadaan ayaan rajayn doonaa marka waxaan leenahay Jannatu Firdaws Ilaahay ka waraabiyo gurigeeda rasmiga tagtay geerida meel walba ay ku weelaysaa Soomaaliya ka soo tagtay halkan ay timid safaray ahayd safaray isku diyaarinaysay kaar ay haysato inay caafimaad rabto inay ku aado oo loo keenay intaan la gaarsiinin kaarka aysan uu gaarinba nafta ka baxday ilaahay u naxariisto marka wax dhaawac oo jirkeed ku yaalina ma jiraan wax dhaawac oo jirkeed ku yaal ma jiraan sunay cabtayna ma jirto jirdil loogu soo geystay xadkana ma jiraan dada waxay dhahayeen Greegi oo tilaabday askarta Greegi qabtay halkan loo soo xiliyay waxaas waa been waay qofka markuu xadka Turkiga uu ka baxo tahriib uu yahay uu galo xadkaas Turkida ayaga yeelin ba qof xadkooda ka baxay lagu soo celiyo qof adan qof sharci daro u sii taariibay marka wararka waa laga fiican wararka beenta propagandada fake in la iska daayo waa laga wanaagsan qof walaasha oo geeriyootay inaad wararkeeda aad ku raadiso waxyaalaha aan micno lahayn waa laga wanaagsan marka waxaan leenahay dadka wararkaasi sidaas u dhigaya beenta sheegaya oo xilli Ramadaan lagu jiro oo tobanka dambe lagu jiro oo wararka noocaas faafina war ka waanto aan leenahay intaas ayaan runtii maanta doonayn inaan idinka jaahil bixino iyo wixii soo kordhay Ismaaciil waxa ku diraysaa ma wax ka mid ah kulay saa wax soo taxaan anaga in beantii propagandada la joojiyo kaliya gabadhaasna kiiskeeda halka lagu xiro kulay waxa dhiban kaliya xitaa in loo duceeyo insha Allah muhiim ah iska badan macnaha waxaan jirin laga sii sheekayo kulay gabadha maanta waxaan ugu leedahay ducada waa kiiskeeda uu soo xirmay halkaas ugu dhamaaday birno alaasay insha Allah Ilaahay jannada Firdaws geeyo Allah naxariisto waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga iyo ururka Somali Voice oo arintan door weyn ka ciyaaray ayaan u mahadcelinaynaa runtii oo gabadhan xaalkeedii markii la soo bilaabay ilaa iyo dhamaadkeedii isbitaalada markaas taagnaa oo arintan aad nogala shaqeeyay aad mahadsantiin waxa kale oo jiro oday Soomaaliyeed aan rabo fursad in uga faa'iideysto oo isagana ku geeriyooday magaalada Ankara ku geeriyooday oo maalintii shanaad isbitaal yaala isagoo xanuunsan oo isbitaal ku geeriyooday maalintii shanaad isbitaal yaala isbitaalku waxay u haystaan lacagtii oo isbitaalka uu ku lahaa ayaa loo haystaa waa lacag dhan adiga $1,800 lacag dhan ayaa loo haystaa maya waa 18,000 lacag dhan ayay u haystaan $18,000 sida ay waalidka ay sheegeen waalidka safaaradda la xiriireen safaaradda tageen waxyaalo fara badan ay ka wada hadleen kulay waxaan rajaynaynaa safaaradda Soomaaliyeed inay iyo waliba dawladda Turkiga safaaradda arrimahaas ay ka wada hadli doonaan odaygaas miskiinka ah ee geeriyooda asagoo meeda isbitaal yaala lacag loo haysto in la fududeyn doono ayaa rajayn doonaa jaaliyada markaasi ehelkooda haday codsadaan in bulshada Soomaaliyeed ay gacan ka geysato in sida lacagtaas loo furdaamin lahaa waa wax wanaagsan markaasi bulshada loo soo waa loo bandhigi doonaa bulshada Soomaaliyeed marka odaygaasna inuu Ilaahay Jannatu Firdaws ka waraabiyo lacagta lagu leeyahayna safaaradda markaasi in door weyn ay ka ciyaarto rajayn doona jaaliyada Soomaaliyeed ba ehelka dowlad badan markaasi in lacag ummadda Soomaaliyeed ay aruurisana waa rajayn doona marka wasaaradda caafimaadka dalka Turkiga iyo safaaradana arrimahaas inay xoog saari doonaan ayaa rajayn doona oo odaygaasi lacagtaas laga bixin doono maadaama oday Soomaaliyeed uu yahay oo asagoo xanuunsan geeriyooday si qaldan isbitaal in la geeyo waxa dhibkaasi geystaan dhihi karnaa dadkii dhalinyaradii ama dadkii kiiskaasi ku jiray dhalinyarada Soomaaliyeed ahaa oo la socday oo isbitaalka geeyay oo haddana lacag badan ku baxshay geeriyood intaas lacag lagu yeeshay marka maamul xumo ayaa lacagtaas loogu yeeshaan dhihi karnaa marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka ku nool ee arrimaha caafimaadka noocan oo dadka Kenya wadankan isbitaalada geenaya in ay si rasmiyan ama si nidaam ah qofka marka isbitaal la geenayo laga waraysto ma awoodi kara la socodsiyo laakiin in qofka aan la socodsiinin wax lacag ah oo la iska wada isbitaal la geeyo lacagta uu iska bixiyo laga raadiyo lacag yar aad ka raadiso nafci aan lahayn la ka raadiso qofkaas naftiisa inaad ka fikirtaa muhiim marka waxaan dhihi karnaa dadka odaygaasi Soomaali laga keenay dadku uu ku soo degay ayaa dhibaatada iska leh
ayaan mas-uuliyadda dusha ayaan ka saaraynaa leanna qofka markaad isbitaal geynaysid oo haddana isbitaal private markaad geynayso inaad weydiisaa loo baahan yahay ma ka bixi kartaa qaliinka kharashka noocaasa ku baxayaa la yidhi isbitaalka habeenkii lacag noocaasa lagu seexanayaa inaad qofka warbixin siiso laakiin inaad iska geysid oo aad ku ilowdo oo markuu geeriyooda lacagtii lasoo dalaacdo $18,000 lasoo dalaacdo waa wareer marka waxyaalaha noocaas oo kale waa laga fiiciyaan kiisaskan aad ay u bateen qofku inuu isbitaal uu ku geeriyo haddana lacag lagu yeesho marka odaygaasi waxaan dhihi karnaa Soomaaliyeed aadan uga xunaa runtii Istanbul aan joognaa waalidkood waa la xiriirnay contribution haddii dalbadaan waa u sameyn doonaa contribution haddii dalbadaan jaalida Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga ay xarunteedu weyn Istanbul ku taal haddii dalbadaan contribution jaalid way sameyn doontaa shacabka Soomaaliyeedna waa loo bandhigi doonaa laakiin waalidka ilaahay hadartan kama hayno shacabka Soomaaliyeed loo bandhigo laakiin waa ku wargelinaynaa in odaygaas uu jiro isbitaal habeenkii shanaad uu jiifo lacagna loo haysto meedkiisa aska odaygaas in loo haysto lacag in loo haysto marka dambiga waxaa iska leh kuwa soo keenay oo ay ku soo degeen isbitaalka u qalqaaliyay geeyay oo isbitaalka markay geeyeenna waalidka la socda ama ehelka la socda aan warbixin siinin oo aan oran intaas lagu daaweynay ay iska geeyeen isbitaalka dad far badan jiro oo isbitaalada ku jiro oo lacag far badan loo haysto marka waa laga wanaagsan yahay qofka waddanka u imaanaya isbitaal private ka waa very expensive aad u qaali u yahay isbitaalka dawladana juhdi badan ma gelinaya qofka marka waxa wanaagsan isbitaalada dadka imaanaya fadlan intaan isbitaalka qofka xanuunsan ama bukaanka la keenin oo isbitaal private la keenin ogow qiimaha ogow qiimaha lagu daaweynayo qofka bukaanka ogow qofka kale ee Turkiga ku nool Turkiga joogana walaal waxaan ka codsanaynaa qofka bukaanka intaadan isbitaalka geynin warbixin si yeesan dhicin markuu geeriyoodo in lacag lagu yeesho qofka muwaadinka Soomaaliyeed aadan uga xunahay wayna damqinaysaa wax aad looga xumaado waa marka arrimaha noocaas oo kale waxaan codsan doonaa ama arintan inay soo farageliso dawladda Soomaaliya ama wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda caafimaadka ee dawladda Turkiga ay kala xaajooto muwaadinka Soomaaliyeed ee isbitaalka maalinta shanaad ku jira oo waayeelka ah in markaas xaaladiisa la furdaamiyo waxa ku filan warqad yar oo wasaaradda caafimaadka Turkiga loo qoro laga codsado in lacagtaasi isbitaalka lagala hadlo ayaa runtii ku filan marka arrintu way sahlanaanaysaa way fududaanaysaa Turkidana waxyaalo far badan ay qabtaan Soomaalidu aad ugu naxariistaan waxa laga yaabaa lacagtaas in isbitaalka lagala hadlo dawladda bixiso meedkana la aaso laakiin yaa la fiirsan safaaradda waajiba ka saaran dawladda Soomaaliyeedna waajiba ka saaran marka muwaadinkaas yaa la dayicin yaa laga fiirso dadka Soomaaliyeed ee dhaawacyada ama dadka xanuunsan halkan u imaanayana in ay ka fikiraan dadkan caafimaadka u imaanaya luqadii ma yaqaanaan waa dad indhaha xiran meel ay aadaan ma yaqaanaan marka waxa wanaagsan in si saxan ama wado wanaagsan oo nidaam ah oo cadaalad ah oo aan la fiirsanin wax lacag ah inta fiirsan lahayd qofka muwaadinka u naxariisatid ayaa ka wanaagsan oo caafimaad wanaagsan uu helo aan lacag lagu yeelan si wanaagsan markaas loogu adeego arrimaha kale jiro waxa kamid ah dhaawacyadii 14 October ee la keenay waddankan ee la daaweeyay ee noqday tagay Soomaaliya tagay ee la daaweeyay qaarkood xanuunadii ayaa ku soo noqday waxay u baahan yihiin jeekin caafimaad qaarkood waxay ii sheegeen in ayaga iska bixinayaan lacag ay iska bixinayaan laakiin dhibaatada taagan waxay tahay markay halkan la keenayay go home loo jaray haddii fiisa dad waxaa jiro fiisooyin soo qaatay oo safaaradda ka soo qaatay laakiin markii airportkan ay ka soo degeen magacooda laga helay go home inay heleen haddana dib loo celiyay ayagoo jeekin caafimaad inay sameeyaan dib loo celiyay marka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya safaaradda hal hadasho listiga dadkaasi black listiga lagu daray yaala airportkan Turkiga yaala iyo kan xamar yaala in laga bixiyo listiga si dadkaasi lacagaha haysta ayaga rabaan inay isdaawayaan oo jeekin caafimaad ay isku sameeyaan ay markaasi ay u helaan fursad dad fiisiyaal haysta jiro oo haddana waddanka soo gali karin oo haddana lacagtii isku daaweynayaan haysta marka dadka noocaas ha laga baaraan dago arrimaha noocaas oo ha laga fiirsado dadkaasna loo fududeeyo qofka bukaanka Soomaaliyeed oo dhibaatada haysata in mar walba priority la siiyo mudnaanta koowaad la siiyo hadduu dalka wax looga qaban karina sida ugu dhaqsiyaha badan markaas loo daaweeyo
sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dowladda Soomaaliya oo abwaan Baarleex u fududeysay gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo abwaankii Soomaaliyeed abwaan Baarleex u fududeeyay lacagta caafimaadka uu ku maraa caafimaadkiisana damaanad qaaday isagoona maalmaha soo socdan Istanbul imaan doona marka arrimahaas oo idil dadka Soomaaliyeedna inay ka feejignaadaan dadka Soomaali caafimaadka uga imaanaya Turkiga imaanayana fadlan wadanka Turkiga jaaliyadu leeyahay la soo xiriira dad wadada joogo oo si cadaalad ugu shaqeynaya idin adeegaya jiro oo aan lacagba idinka rabin la soo xiriira haddii qof aad dhibaato kugu dhacdo markay dhibaatada kugu dhacdo oo lacag lagugu yeesho fadlan markaasi dad haraadin waxa aragnaa dad dhibaato ku dhacdo kadibna soo raadinaya anaga saasay tahayna waa dadaali doonaa hadduu ebeedmo waxaa jiro qof kale bukaan Soomaaliyeed oo asagoo transit ku ah airportkan Turkiga kooma galay isbitaal ilaa haatan ku jira ayagana dad fara badan oo dhalinyaro fara badan aan u dirnay xaaladiisna waa la tacaalay waxaan rajeynaynaa inuu Ilaahay fududeeyo marka meel walba aan joogno qofka Soomaaliga markuu wadanka soo galo waajib naga saaran inaan caawino aan u gargaarno kaalmayno inagoo aan ka qaadan hal shilin inagoo ka qaadan inaan u gargaarno ayaan naga go'an marka muwaadinka Soomaaliyeed inuu qiimo yeesho la doonaya qofka muwaadinka Soomaaliyeed inuu qiimo yeesho qofka Soomaaliyeed xanuunsan hada qof muwaadin Soomaaliyeed oo dhiig la tahay qofkaasi hunguriga ka raadin qiimay u adeeg u turjun caafimaad fiican u raadi isbitaalada ugu wanaagsan si wanaagsan ugu shaqeey ha ka raadin shilimaad yar ha ka raadin kadib marka lacag lagu yeeshan ha ka dhuuman sida dhacday Ankara ka dhacdo kale marka arrimahaas waxaan rajeynaa in laga waanto rajeyn doonaa haddii aan laga waantoobin dadka waxyaalahaas ku shaqeysta Turkiga ku nool jooga magaalada waa soo bandhigi doonaa waa la sheegi doonaa magacyadooda waa la dacweyn doonaa wadanka jaaliyad waxa ka jirta sharciyeysan ka jirta safaaradu leeyahay waa la sheegi doonaa marka ma doonin dadka inaan fadaxayno ceebeena marabno laakiin qofka si hoosena wax ugu sheegno way naga go'an tahay waan u sheegi doonaa dadka qaar koodna fariimo waa gaarsiinay dhibaatooyinka way iska badan yihiin lama soo koobi karo inkastoo intoodii badan la xaliyay haddana caafimaadka xitaa kuma koobna dad waxaa jiro iqaamooyin aan samaysanaya ama degnaansho samaysanaya oo $1,000 laga qaadanayo xaggee ku dhacda xaggee laga arkay qof $1,000 laga qaadanayo ma jirto marka iqaamada qofka degnaansho hadda ugu badan $400 kaga baxaysa hadda waxaan u jeednay gabar magaalada ku cusub ragay u tagtay markay u tagtay rag macruuf ah waa magaalada laga yaqaan markay u tagtay waxay yiraahdeen waxa bixinaysa $2,000 waa iqaam $400 lagu sameeyo $2,000 ka qaadanaysa xaggee lagu arkay waa dad la yaqaan macruuf ah magaalada degan xafiisyo kule dadka magaalada imaanaya Soomaaliya ka imaanaya oo luqadii garanaynin oo wadankii kale garanaynin in indhaha laga rido cid idinka yeelisa ma jirto wadanka wadan sharci ka jira waa qofka hadaadan waxaas ka waantoobin waxay noqonaysaa marka in lagu la fariisto oo wixii jiro lagu sheego hadal maqli weydana in lagu dacweeyo noqonaysaa qofka guri laga kareynaya iqaamo beena loo xareynay oo falsa loo xareynay markay balanta kusoo baxdana waxa la leeyahay iqaamadii wixii way falsi noqdeen hadda gabar Soomaaliyeed oo ayadoo garab ka jaban magaalada timid hooyo Soomaaliyeed ay kusoo degtay markay kusoo degtay iqaamay u xareysay markay u xareysay faylkii rasmiga originalka ah oo iqaamadu ku siin lahayd way diiday markaan la fariisanaan ku dhiray gabadhan hooyo waalid inta uma joogo faylkeeda si markaan dhaarna waxay tiri faylkeeda marka balanteeda ay soo dhawaataan siinaya balanta markay soo dhawaatayna teleefonkii ka daysatay gabadh iqaamo la'aan ku dhacday hadda waxay dadka ku galifaysaa gabadhaas kaar UN qaxooti inay qaadato baasaboorka Soomaaliga ay wareejiso kaar UN ay qaadato qofka noocaas sameynaya dhaqamada noocaas sameynayna waa qof Soomaaliyeed oo wadan kale ka imaaday oo Soomaali xitaa ka imaan oo baasaboor British haysta waa oo magaaladan jooga Istanbulna la jooga dhowr jeer laga hadlo waxyaalaha noocaas oo kale inaysan maamadaasi sameyn way sameysay بالله عليكم Soomaaliya leeyahay marka qofka Soomaaliga dhibaatada ku dhacday ee nolol raadinaya nolosha baahida kaga faa'iideysan inaad baahida kaga faa'iideysato waa qarad dadka qaar markay ayna soo wacaan oo ay nala soo xiriiraan waxay ogaadaan xaqiiqda waxa jirtay gabar Soomaaliyeed oo qurbaha ka timid 4 carruur wadata
iqaamay rabtay guri inay degtay rabtay waxaa lagu yidhi gurigaan kuu kireynaynaa $5,000 keen guriga macal iqaamada xaggee lagu arkay $5,000 ma guriga lagu kireeya guriga ugu badan $2,000 waa $500 iqaamada $300-400 ku baxaysa qofkii oo weliba wax cad ah oo booliska ka imaanaya oo dowladda ka imaanaysa oo faylka lagu siinayo wax walba ay ku qoran yihiin inaad marka dul saarata lacag dheeraad ah ceeb ay kugu tahay gabadhaas markay nala soo xiriirtay oo ragga waxaas ay u sheegeen anagoo maalin wadada maraysa nala kulantay wixii naga dhaadhicisa oo sheegnay $400 lacag ka yar 4 caruur yar ay wadatay iyo ayada wixiina waa loo fududeeyey raggii marka maxaa ku soo baxay waa rag ceebaysan waa marka waa la soconaa qof walbo dhibaato sameynaya waa la socdaa ma doonina marka inaan dhan hebel waxaasuu sameeyey aan fadeexadayno oo sumcadiisa aan ku ciyaarno ma rabno laakiin sida wax kugu sheegi karna waa lagugu sheegaya marka ma doonay hadalka inaan dheero arrimahaasi arrimo fara badan jirta waxaan rajaynaynaa safaaradda Soomaaliyeed waajibkeeda qaran ama waajibka Soomaalida waddanka ka saaray inay gudato aabahaas xanuunsan isbitaal ku jirana in dowladda Soomaaliyeed ay soo fargeliso muddo 5 maalmo isbitaal ku jira hooyadii la socotay habeen walba soo wacaysa ayadoo ilmeynaysa in wax laga qabtaan rajayn doonaa hadduu eebidmo Ramadaan wanaagsan leenahay marka laga faa'iideysto qeyrka bisha barakeysan ee Ramadaan 10 dabal lagu jira xumaantana hal iska ilaaliyo Soomaalnimadana ha weynaato wax Soomaalinimada ka hooseeya ama ka sareeya ma jiraan Soomaalinimada sharaf leh qofka muwaadinka Soomaaliyeed marka aragto qiimaha kula yeesho yuusan ajnabiga qiimo kula yeelan qofka muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu rabaa noqdo qiimaha kula yeesho u shaqay u adeeg $1 ka raadin ajraad ka helaysaa laakiin inaad nafci aad ka raadiso sharaf xumo ku tahay qeyran idin rajaynayaa kulli hadalkooda ku dheereeyay wixii qalad ah markaasi aan galay ama cidii si qaladan u faahantayna way kala lahaanaysaa laakiin oo kaliya inaan wax sheegno dadku wax u sheegno waajibna saaran waay kama kambanayno waajibna saaran qofka qaladka loo sheegaya qofkan si hoos oo la fariisan karna si hoos oo la fariisanayna oo magaalada ku nool Istanbul ku nool Turkiga ku nool waa tixgelinayna qofka meesha hadaan ku noolahay ma aha inaysan waajib iga saarnayn qofka magaalada qof walba in lagu dhaco ma yeelino qofka Soomaaliga qiimo leey lama dhici karo lama boobi karo qofkii na soo wargeliye ama shakhsiyan na soo waa u shaqeynayna kuma haleynayna safaarad wala dawlad kuma haleynayna Soomaalnimo ugu shaqeynayna qabiil loogu shaqeynay hebel loogu shaqeynay yaata loogu shaqeynay Soomaalnimo loogu shaqeynay ku farxam ka nax yelkadeed intii afurtayna waxa leenahay afur wanaagsan intaan afurina waxa leenahay afur kasi nabada Ilaahay ku gaarsiin anagu kale wali waxa inoo dhiman casiraan joognaa qeyran idin rajaynay